السلام عليكم خيارتي وادين سلامي وكين قداغ عاو waxaan ka hadlaynaa barnaamij iska gaaban oo maaragtay aan aad iyo aad maaragtay muhiim u ah muddo adiga muddooyinkan adiga waxaan ku xirnaa janaalkan ha noolaad la dhaho barnaamijka ka soo galo waa daawada wilo barnaamijkiisa waa hal barnaamij ka baxo waraysiga oo waagi dawladda ilaa iyo hadda iyo qalaadka dhacay dadkii maaragtay magac lahaa dadkii wax soo maray dadkii dib soo maray dadkii maaragtay wax ka tawanay dadkii wax ka tawanay lagu wareysto marka barnaamij kale oo dad qaarna positive oo arkaan jiraan mar inaan ka hadlo laakiin waxa rabaa inaan ka hadlo caawa barnaamij u dambeeyay oo ka hadlayo dawliye asari ولا هرتبا برنامج كاس وبرنامج آد معرفة تصالة ومضن دولي أزري إنه هنا دعوتان في عنتاي عاد في عناد إن لا أصر عسان إنه عن قوس كايدن كشيء كي يعني ما بحني سويلي ببوجي سينات رأسان وأقسان بوجو صاري دولي أزري وعنين معرفة دولة نمو كل شيء kusoo koray dawladii maaragtay kusoo barbaaray ilaa heer oo duuliyo ka noqdo marka qisada waxa u dhacaysaa qof dawladnimo kusoo koray ilaa ay duuliyo ahaa ku faraxsan aad u haminayo waliba Soomaali Airline waday haddana maaragtay asiyo horumarkiisa dhaxda u marayso wax walba سكيل ديلتريهين أو فرحسن دولتي كبربرتي أصله قحايو أو كقحايو دجال كمقدس كسعودة مركز أو ليبا وضدي أسوء مراي لله ما عرفت ده بحبيني سياد برا هاد هرتين مراي نيجي أسوء ما عرفت ده هجامية وهذا كده نوترناي كدي نيجي دولي هاسها وحول نقضي حول نقطة baadiyo galay ninkii maaragtay cirku ku duuli jiray maaragtay hadana wuxuu maaragtay dhulku wuxuu lagu taajinayo oo ku raacaya hadana waa qisad xanuun badan isla asigii qisada xanuunka waxay tahay in cudur uu baadiyo tuulidi uu joogo cudurka dilaacay malaria qandho ilmihiisa maaragtay cudurkaas ay u dhintaan asigii naftirkiisa maaragtay cudurkaas oo ku dhacay oo haddana niyadiis ku jirto war ninkii maanta cirku ku duulayay maanta caruurtiisa xataa u badbaadin weysa xataa wadi waayay xataa meel daawaha u geeyo shalayna diyaarada duulinaysa maanta caruurtaadi aad maartay noloshooda halis ku jirta xataa dameer yar oo saartid xataa la kadib adiga rafaadkaas kadib markuu soo maray haddana sida asaga noo sheegay oo qisidiisa ku sheegay ay tahay in dawladii maaragtay kumeel gaaradaheed madax ka soo noqday wasiirka jaaliyadda xataa noqday markuu jaaliyadda dibadda u tagay aad loogu soo dhaweeyay loogu maaragtay loogu marxabeynayay qisooyinkiisa asxaabtiisii hore la kulmaayo marka ka sheekeynaya marka su'aalo waxaa jira oo maaragtay la isweydiiyo oo maaragtay wariyaha weydiinayo oo maaragtay dhibaatooyinkan ka dambeeyay yaase maaragtay eedaas dusha loo saarayo su'aasha u horeysay oo maskixiyan u baahan waxay tahay su'aashan oo hadda uu weydiiyay yaa mas'uulka waxay wadanka ka dhacay waxaa ka mas'uul dawladii iyo jabhadihii saan u qabo maxaa keenay dawladii iyo jabhadihii ما وضعن كرم دولتي ما حميد ما وضعن كرم لكن نول بحكم بولادنا إنه حكومة السوء إنه حكومة أما بيش يسوع حكومته أيانو حد نواسدي ولد العاس واجره نول بوحور ما إنه حكومة أما بيش يسوع حكومته بيش أمري كان وأمر هيا maxaa keenay marka qof walba inuu xukun raadiyo waxa keenay soo lama dhihi karo wixii ka dhashay kacaanka dawladda doorteen oo rayid ah oo qofkii raba inuu xukun aado doorasho aadi jiray
oo maskaxdiisa ku qofulnayd inuu xisbi galo doorasho aado ayaa nin xog ku qaatay iyo koox kadib horta waxyaaba waxaa jiro weriyaha markuu maaragtay ka hadlayo ama barnaamij siyaasi ka hadlayo oo bulshada wax fiican usoo bandhigayo mar barnaamijka ama weriyaha in qadiyad goonaha ama eed in hal dhinac inuu saarayo ila muuqato badanaa wareysayaasha dadka uu kasoo qaadayo marka waxay tahay meesha yeeshaa waxay tahay war wixii dhacay iyo maaragtay burburkan maxaa sababay markay burburkan dhacay yaa eeda dusha loo saaray yaa ka dambeeyey azari asagaba uu leeyahay burburkan waxaa ka dambeeyey dowladdii iyo jabhaddii marar su-aalo badan waxaa jiro xataa uu kusoo celinaya uu dhahayo dowladdii inay ka dambeysa ma tahay dowladda macnaha in ninkan dowladda maaragtay eed badan inuu saaro jecel waayo qofkana dowladdii eed badana ma saari karo waayo dowladdii asagaa ku jiray duuliyuhu ka ahaa diyaaradii Somali Airlines wax badan uu dowladdii ka soo arkay macaankeedu soo arkay waxay ahayd soo arkay inta wanaagsaneedu arkay macnaha marka wixii wanaagsanaa ee dowladda qabatana ma dafiri karo wixii xumaa dowladda ay maaragtay sameysayna ma ka difaaci karo way ku saxneen ma dhihi karo laakiin sida dadka oo dhan u muuqato dowladda burburkan iyo qaxan iyo qabiilkan waxa keenay waxay tahay dowladdii iyo maaragtay qolada maaragtay jabhadihii labadooda eed way wada leeyihiin sida runta ah oo loo wada jeedo mid runta loo wada jeedana waxay tahay in maaragtay qabyaalad meesha ay ku jirto oo dadkii qabiil la soo kicinayo qofka qabiil ku soo gambanayo soo azar uu sheegay waa qof maaragtay wax matara ah dowladahan raalgelin baa maxay ka raalgelin nin walba iska fiican yahay wuxuu leeyahay siyaad barraa sidaan ahay anigu ma ahayn siyaad barraa laga wada tashan waa laga wada tashan dowladda hadda nin walba wuxuu leeyahay magaciisa meel kasta haato dara kasta haayo كان أنا كم شيء عبق سليم بانا قبيل يا قبيل هذا قبيل يستاهل سياسيين تستعمله لكن وأنا ترى exactly وأنا نقول رأيتها هي جرجار قليل نمسكوا كرسون وصومال وصوماليا وكما أدري قبيل واحد قبيل ما هو هنا نك النوع عاشا ويسكو كرسون وين هذا ورنبك هنا هيسوى قبيل يا قبيل ما هو وقرن حمو ودولة حمو oo gadaal dadku ku soo gambadaan faanta taasna been ma waa mid loo wada jeedo oo aan wada aragno marka barnaamijkaas intii aan soo daawanay laga yaabaa qaybo kale inaan soo qaadano niman dad kale oo la wareysanayo oo barnaamijkan saacada u bilaabo uu ahaan doona hadii la yiraahdo hadda barnaamijkaas oo caawan soo wada intaas faafahintaas yar oo aan ka arkay iyo talada noogu haboon iyo maaragtay waxyaabaha anaga aan maanta aan kor u kici karno u istaagi karno ka mid tahay aan ka qaadan karno waano iyo maaragtay hadal qiimo leh dareen dawladnimo qofkii soo maray qofkii dhibaato soo arkay walo anaga aan u badanahay inaan dhibaatooyin soo aragnay dawladnimo aan soo arkin dad qabiil isku heestaan ku xataa waliba dad qaar laga yaabo aniga amal inaan soo arkin xataa dawladda oo la dagaalayo maana soo arkin laakiin waxaan la soo kulmay qabiil ku duulayo hadii meel aad tagtid qabiilka lagu sheegayo tan hadda ay dhacaysa daheer hadda waxaan mareynaa binaan meesha qabiil iskugu faan jiray hadda calanama la iskugu faanaya qabiil baalan u sameeysto u dabaaldego sanad walba maalin kasta qabiil hibil calankiisa waa calankii Soomaaliyeed loo maalin sanadkii laga xusayo halkii mar intaas baa dadka diiniyada labadaas maalin bay soo gashay inta kale qabiilada ah xoog saaran marka barnaamijkan intaas ku yahay